mahad celinayaa dhammaan waan salaamay horta bulshada page-kayga ku xiran halka waxa uga mahad celinayaa odayaal aan wacay oo iswaraysanay oo ii sheegay in dhalinyarada Ciise Maxamuud ee dagaalka uu ku hogaamiyay ninka halka iska fadhiya Jarmalka ee waxba ogeyn in lala hadlayo oo la soo celinayo waxa kale oo la ii sheegay Faroole inuu mar dhow Jimcaalo wacayo in dhalinyarada in la soo celiyo ay tahay aan dab lagu shubin halka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay hadalka odayaasha Ciise Maxamuud waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka codsado Somaliland in ay si wanaagsan oo la dhaqmaan dhalinyarada Ciise Maxamuud ee nagala soo qalday waa la soo qalday dhalinyarada Ciise Maxamuud baa la soo qalday waxaan loo dhamayn baa loo sheegay arinaysan ogeyn bay dalaq yiraahdeen waxa weeye maslaxa in la raadiyaa la rabay in dadka la kala dhaxgalaa la rabay laakiin nin baa soo qalday mar haddaan waraysan isinkii markii la weydiiyey arrinkaa waxa uu yiri anigu waxba kama ogi dhalinyarada ayaga farabaxsaday ayaga ma aragtay halka ma aragtay dad baa u gacan haadiyay waxa kaloo maxay ahayd suldaankii markii la waraystay waxba kama oga odayaashu waxay leeyihiin dhalinyarada in meesha lagu baabiyo maaha dadka Soomaaliyeed oo wada dhashay in macnaha maslaxaan ku kala dhaxgalay annaga ahayd inaan ma aragtay laakiin marka especially anigu marka Ciise Maxamuud baan saaranahay Somaliland marka waxaan leeyahay fadlan dhalinyarada la soo marin habaabiyo ninka uu soo marin habaabiya taqaanaan de qaladka ku yimid oo maxay ahayd halka dagaalka ka galay ayadoo si kale wax loo maslaxayn karo dhiigga muslimka labada dhinacba daadanayo fadlan dhalinyaradaas yaa waxba la yeelin dhalinyarada Ciise Maxamuud waxa weeye waxaan la yaabana ku qoslayaa bal fiiri mid baa halkan wuxuu ka leeyahay car ma dili kartaan car ma dili kartaan car waa wallahi yaa waa la qabtay marka ma u danaysay maxabiistis meesha lagu hayay mise waxa rabtaaba adiga in la dilaarta maxabiista ila waxba uma qaban kartid dadku waa la haystaa guri waaba la qabtay oo xabsi baa la gashtay oo waa lagu tusayo waa lagu hadalsiyo waxay ku leeyihiin dadku waa walaale maxay tahay arinta naga daayo alla dajiyo dadku si wanaagsan haloola dhaqmo adiga halkaas waxa ka soo leeyahay ardil ar madili kartaa waa qabatay madili kartaa waa qabatay madili kartaa oo ninka qabtay inuu dilo maxaa u diiday ma adaa u diiday ninka qabtay inuu dilo maxaa u diiday hadda korba waxa jiray nin la maxay to xamar waxa jira waqti wiilasha gabdhaha la koray ee kaligood la dhashay gabdhaha dilaano guriga macnaha waa laga baqaayo marka kaligood ba marka waxay u haystaan guriga sida ay macnaha uu ku yahay gabdhii marka waxay u haystaan gabdhii waxay u haystaan guriga siduu ku yahay inuu banaankana ku yahay moogta ila ayagu ka adeegay ama weyn gudaha markaas gabdhii wana xayawaan ka xoog badan yahay moogta marka habeen baa waxa la yiri waana xamar weyne waa kuwan marka maxay cadcadka Soomaalida macnaha marka mid baa baxay marka yar noocaas oo kale ahaan jiray ayaa shaleemadu aaday marka walaashiis wuxuu ka qaatay katiinad waagi dhalinyarada la ahaa xamar waxa walba iska xiran jireen katiinadu walaashiisu qaatay oo xirtay moogta qoorta gashtay shaleemadu gala marka shaleemadu markuu ka soo baxay barki 6 saac habeen marka waa xamar weyn oo daaqadahay ka fiiriyaan gabdhaha oo de guriga macnaha waa aragtay marka gabadhan katiinadeedu la maqlaayo waxa isla macnaha de mana ka cishan karto halo marka daaqaday ka fiirsa marka xiliyadu iimaanay way taqaana waqti ayadoo daaqada ka fiirnaysa laba tuuga daaqadu macnaha meeshu jiiradu soo maray uu istaagay waa la qabtay bixi baa la saaxib dharka waa sida ka boygu u labisnaa horta dharkii oo dhan baa laga bixiyay marka dharkii laga bixiyay kastoomada u hartay saadana katiinadii baa arkan saali katiinadana bixi soo katiinadina waa si kastoomadii kaliya u hartay oo iska tagaalay marka waa gurigaaga gal oo baxay guriga soo galay markuu guriga soo galay walaashiis Maryani ayaa la oran jiray asna macaan waa la oran jiray moogta
markaas albaabka ila katiinadeeda u darneed albaabka markay ka furtay waxay tiri waxna ma dhihi karto oo de wudilaya oo ninka maarata caaqa way waa ninka gabdhaha la korayo way ninka gabdhaha la koraysiisa waa saas moogta markaas waxay tiri abo macaano faradheertaana ya khadib miina waayo wallahi billah markaas maxaa jira abay mariyane katiinadii abay mariyane xataa waa cafin waayo waa qaateen waa ku tageen alla dhib badana faradheertaana tiri moogta ayadoo soo kaas wuxuu أباي مرياني مسكينة تاني مقل كاستر مني إيدي لاين كستومة السيب لفهنا اسكو مرقلها هاوي مني إيدي لاين كستومة السيب لفهنا اسكو مرقلها أو محا كلها إيدي لاين كستومة السيب لفهنا اسكو مرقلها يسدين معنا اسكو بابي لاين بلايا نعلاين maxaa balaan على القاوي ومحاية تركي لقاقات كثيرة لقاقات هوشي وحي لما لقاقات يا مركا wuxuu ku leeyahay mid jooga Yurubta iyo macaa tire galbeedka wuxuu ku leeyahay ardil waa qabatay midili kartaa ardil waa qabatay midili kartaa waa macnaha kastuumadii siibli ila la feena isku mirqilaawa waraa dadka maxabiista oo la hayo marka wada qabto saas looma hadlo it means cadow ayaa ku taa kuwa hay'adda cadow kuma adaa cadow ku sababtoo waad ku cararjinaysaa marka haday dilaan maxaa ka qaban hadda waa dilan babba ku tiriyeen maxaa ka qaban kartaa marka waa dagaalamaya waa dagaalku ma socon maxaa ka qaban kartaa maxaa ka bedelaysaa markaas ummadda nabad in la dhex dhigaa wanaagsan ummadda waa in nabad la dhex dhigaa ummadda waa in wanaag loo sheego ummadda waa in si wanaagsan u hadlaan ninka dagaalka ku baaqay dagaalka ha aado ninka dagaalka ku baaqay waa inuu dagaalka aado waa inuu caruurtiisa u diraa waa inuu asaga tagaa waa inuu ka muuqana waa inuu yiraahdo ana jooga waa ikala miijada kanaalkan kale saa u socdo marba TV-ga noo soo duubayo meeshan dagaalka ma jiro waxa dagaal ka jiro goobta way wiilal Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed yaayo ku soo korisay in dagaalka lagu baabiyo anigu ma yeelin hadii marka qabaa'ilada kale ay qaadanayaan aniga Ciise Maxamuud waxaan ahay nabadoonka guud ee Ciise Maxamuud baan awoogi baa iga dhinta Allah u naxariistay cid bedeshayna ma jirto nabadoonka guud waxa la kala bedelay